kulanti wacan saaxiibayaal meel baa joogtaan magacayga waa Khaliiji sidaa wad ogtihiin saaxiibayaal waxaa wadanka Jarmalka markii ugu horeysay taariikhda laga ansixiyay ama laga sharciyay isticmaalka daroogada loo yaqaano cannabis ama xashiishka waa daroogada saddexaad ee Soomaalida aad u isticmaasho markii laga soo tago jaadka iyo sigaarka xashiishka waa dhir la beerto kadibna qofka oo sida sigaarka oo kale u dhuuqayo isla markaana maskaxdiisa ay bedelayso ama hay ka dhigayso dhibaatooyin badan ay maskaxda iyo jirka laba u keentaa dhibaatooyinka ay caafimaad ahaan u keenayso waxaan kula talin lahaa dhakhtarkaaga inaad kala hadashid laakiin waxaan isla ognahay in qofka isticmaalkeeda badsada ay noloshiisa dhaqaale ahaan jir ahaan iyo mustaqbal ahaanba ay saameyn weyn u keensanayso wadanka Jarmalka waxaa laga sharciyay laga soo bilaabo taariikhda 1 bisha 4 Abriil 2024 qofka waxaa loo ogol yahay in maalintii oo ilaa 25 gram oo isticmaali karo ama oo haysan karo dhaqaatiirta iyo siyaasiyiinta Jarmalka ayaa ku kala aragti duwan oo qaar badan waxay aaminsan yihiin in dhibaatooyin dhanka caafimaadka ay keeni karto halka qaar kalena ay aaminsan yihiin in qofka isticmaali jiray ay lacag u baaqanayso maadaama oo sifo sharci ah ku soo iibsanayo maskaxdana oo si fudud ku furan karo dad kale ayaa qaba in arintan ay si qaas ah u taabanayso qaxootiga tirada badan oo ku sugan wadanka Jarmalka kuwaasi oo u badan muslimiin Soomaalidan ay ka mid tahay in haddii ay isticmaalaan ay dib u dhac weyn u keeni karto taasi ugu dambeyntii oo qofku ka sababi doonto in nolosha uu ka dhaco ama uu dambiile noqdo sidoo kale waxay waalidiin badan ku sababi kartaa in ilmaha si fudud loogu qaato haddii ay isticmaalkeeda badsadaan maadaama waalidiinta isticmaasha xashiishka ay dayac badan u geystaan carruurta sharciyeenta xashiishka ay dowladda Jarmalka ay sharciyeysay waxay ka dhigan tahay in qof walba naftiisa iyo ilmihiisaba oo mas'uuliyadooda qaadayo haddaba sidee u aragtaa ansixinta la ansixiyay xashiishka ama cannabis ma kula tahay in uu xal u noqon karo Soomaalida ku sugan wadanka Jarmalka kuwaasi oo inta badan lagu xanto in ay dhibaato u geystaan ummadda kale ama ayaga ay dhibaato isku geystaan inta kulanka xiiso badan kulmi doono waa anigu Khaliiji ah fi amaan Allah